salaan kadib maanta waxaan joognaa magaalada Wasil waxaan nahay dhalinyaro isu soo abaabushay oo ka timid magaalada Kalkacyo matalaysana beel kamid ah beelaha dagaalkan iyo hawshan iyo abaabulkan uu quseeyo anoo ku hadlaya afka dhalinyarada beesha reer Nimcaale ahna gudoomiyihii reer Nimcaale oo dhalinyarada waxaan soo gaarsiinay maanta meeshan deeq raashin ah oo aan ugu talagalnay walaalaha meeshan jooga oo jiida fadhiya oo colka hor fadhiya inaan ku dhiirigelino hordhacna waxaan u nahay walaalaha kale oo sidoo kale inay ku daysadaan oo ay isku abaabulaan warka ma raba inaan badiyo dad badan oo aftahaniina siyaasiyiina waxgarad ah saraakiil ah gudoomiyaal ayaa fadhiya waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan rajaynayaa insha Allah hawshaan inay noo noqoto hawl maantay aad iyo aad dhiirigelinteeda iyo quruxdeeda wadata birina kuwa ku qurux badan oo ka wax qur badan oo ka gacan roon inay yimaadaan nuguna dayan doonaan hordhacna u nahay waxaan kaloo ku darahayaa walaalaha jiida fadhiya oo xabadu ku soo dhacayso oo waxa weeye busta ka dhargay ma moogin uurka in kala joognaa adinka in kala joognaa wax allaala wixii aan mawd iyo maal iyo aqli aqoon leenahay waan ku garab taaganahay waxaan dhexda dhuusha ugu xiranaynaa ninkii aan jiida gelin inuu wixii uu awoodo kale u keeno meesha haatanna waxaan ku wareejinayaa xildhibaankayga ugu matagay golaha deegaanka ee degmada Kalkacyo Saacid Cabdullaahi Yuusuf salaan kadib halkan waxaan dhalinyaro meeshan soo abaabushay oo isxilqaamka dadka walaalaha ku sugan jiidan dagaal ku furan yahay soo xilqaabtay ahayn waxaan rabnaa inaan marka hore ugu mahadcelino dadka meeshan ku sugan oo haday yihiin wasiiro mas'uuliyiin haday yihiin ciidamo jihadka ku jiro runtii aad iyo aad inaan u dhiirigelino oo ayaan inta soo gaarnay sidoo kale waxaan ugu deeq soo qaadnay oo raashin ah oo aan ugu talagalnay inaan ku caawino dadka jiida ku sugan aan wadno deeq yar raashin ah sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu baaqno dhalinyarada gobolka Mudug joogto oo runtii jihad gobolka Mudug joogto runtii ayagana inaan u baaqo inay ka soo qayb galaan jihadkan haday tahay macaawinaad haday tahay af haday kala adan tahay inta inay ka soo qayb qaataan baa u baaqaynaa ka dhalinyaro ahaan iyo ka maamul ahaan dhamaanteen waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano jihadka wargixisada gobolka soo duushay waxaan leeyahay dhalinyaro aad u mahadsantihiin dhalinyarada beesha reer Nimcaale oo maanta soo abaabushay meeshaan aan ugu talagalay inay deeqdan soo gaarsiiyaan deegaanka Wasil oo muddooyinkan u dambeeyay ay ka socdaan howlo abaabul oo jihaad ah waxaan leenahay dhalinyaradii noo soo dhiibtay iyo dhalinyarada socotaba intaba waa mahadsantihiin waxaan ka soconaa intaan ma ahana dhalinyaro intaan ka fara badan baa waxaan ka soo qaadnay waxaan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino kuna garab istaagno ciidamada jihaadka ku jira haddii annagu aanan awoodin kara dhalinyaro ahaan inaan qorigii aan qaadno maanta aan howlo kale ku mashquulsana waxbarasho inaan qulubta aan kala soconno deegaanka aan tagno wixii kalaankeenna aan dhiibno dhalinyarada kalena waxaan rabnaa sidoo kale inay u soo dadaalaan ama ha ahaadaan ururo dhalinyaro oo gobolka ka jira ama ururo qabiil ha ahaadaan maanta haddii aanan garab istaagin ciidamadana biri waxaan garab istaagi doonaa dadna gumaysta oo qulubta naga dega waxaan u baahannahay intaas aysan gaarin inaan maanta ka hadalno deegaankaas oo aan garab istaagno ciidamadii dadkii deegaanka deganaa dhalinyaradii laakiin ka hortagga ka wanaagsan ka dabataga waxaan leenahay anagu ciidamada iyo maamulka gobolka oo horkacayo iyo saraakiishaba waa in garab taaganahay qulubteeni baa aan wadnaa waxaan inii wadnaayo kaleeto wixii yarka ahaayo aan isleenahay waa kaga qayb qaadan kadin dhalinyaradu waa iska jeeb yar laakiin waxay soo qaadeen maanta wixii ugu muhiimsanaa oo maanta la oran lahaa raggaas meesha jooga waxbay ka tari karaan ma ahan baahida dabooli karaan waxbay ka tari karaan wax hoomay saaran ma ahan wax ay u qalmaan ragga maanta jiidaas hore jooga laakiin waxaan isleenahay waxbay ka kaabi karaanoo maalin baa lagu sii harsan karaa xitaa 2 maalmood ma ah waan ognahay baahida ka jirta laakiin maalin waxaan isleenahay ragga waa harin karnaa haddii Ilaahay waxaan leeyahay dhalinyaro aad u mahadsantihiin haddaad soo wakiilateen annaguna sida aad noo soo wakiilateen baa deegaanka u gaarsiinay culumadii iyo maamulkii gobolka iyo dhammaan saraakiishii way joogaan gudoomiye waxaan leeyahay
arrintan waxaa soo dhiibtay dhallinyarada reer Nimcaale wadaadadii iyo deegaanadiina waa laga soo socdaa ciidankiina hormuudkoodii waa yimaadeen intii kalena waa ku soo daba jiraan laakiin maanta waxaan matalaynaa annaga dhallinyaradii ma ahan qabiilka inaan leenahay qabiilkii dhammaan wadnaa laakiin waxaan wadnaa qayb ka mid ah dhallinyaradii baraanji qabiilkii ka mid ah waxaan ugu soo dhiibeen meeshaas ugu soo dhiirigeliyeen in dhallinyaradu ay taageersan tahay waxa meesha ka socda ma ahan inay ka jiifaan waan ognahay in meeshaan baahi badan laga qabo laakiin waxaan u soo istaagnay maanta inaan hormuud u noqono dhallinyarada kale oo gobolka joogta waan rajayn doonaa maanta haddii kilibkaas arkaan dhallinyaradu inay isxilqaami doonaan ama ay ku jiraan isxilqaanka ay wadada ku soo jiraan laakiin diyaar waxaan u nahay inaan meeshaas wax walba oo looga baahan yahay wax aan ka awoodno inaan keeni karno baahida annagu ma lihin waa dabooli ka dhin laakiin wax aan ka awoodno waa keeni doonaa aadaa u mahadsantihiin sida aad nooga guddoonto waxaan wadnaa raashinka noocyadiisa kala duwan timir iyo biyo baan annagu soo gaarsiina maantay intaasaa kaleenkeenu noqday raashinku waa sonkor bur bariis iyo timir iyo biyo waxaan leenahay yaa lala fiirin waxaan aan wadnaa hala fiirsho inta aan sidno iyo inta aan la egnahay iyo dhallinyaro waxay awoodo marka koowaad waxaa iskale allihiina abuurtay isuuka ay keena meeshan ayaa hadda koowaad iskale marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dhallinyaradii soo xilqaantay garatay inay gaarsiiyaan walaalahooda deeqda oo qayb ka mid ah difaaca ayana u mahad celinaynaa intaa kadib waxa weeye waa waajibaadkana waa saaran wuxuu yahay inaan dalkayga iyo diintayga waa daafacno dalkayga iyo diintayna waa daafacno ma aha inaan ku sugno meesha ayagaa hadda jabayba oo naf la caari ah aan waxaan oran lahaa ninkii raba inuu maanta qori qaato ama wax qaataba ayagaa la billiqaysan ha ka soo qayb galo qoryaha wax ka hele because ayagaa sii jabo sii cararayo godod ku jira insha allah waxaan rajaynayaa in gobolka mudug khaasatan ay xor noqoto asbuucan soo socda waxaanan kaga mahad celinaynaa waxaan leenahay meesha ay ka timidna allaha beddelkeeda geeyo maamulka degmadaha raba inaan ku wareejiyo guddoomiyaha cali xasan guddoomiye deeqdan nala ku wareejiyey inaad gacanta ku haysid oo aan kugu wareejina annaguna go'aankaygu yahay haddaan maamulka gobolka nahay waayo buddhiggii edaa ah ku soo dhawo guddoomiye annagu bacdama aan nahay mataqaanaa qoladii oon meesha deganeed oo maamulka wax maamuleysay waxaan laakiin maamuleysay danteena kale waxay oon tahay inaan qabanno ugana mahad celino ciddii noo dhiibtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dhallinyarta beesha reer Nimcaale walaalaheen ah oo bilaabay muxuu ahaa beelbeel inay ma garanaysaa muxuu ahaayeen maanta bilaabeen waa mid naga dhimaneed waan aragnay qolada deegaanka waan aragnay xildhibaanada waan aragnay maamulka gobolka waan aragnay wax naga soo gaaray waan aragnay tuulooyinka waan aragnay wax naga soo gaaray laakiin war dhalinyaro oo ma garanaysaa muxuu ahaayeen maanta yimaada qolada u horeysay weeye waddo ayay noo jeexeen waddadaas aad iyo aad ugu faraxsannahay waa mahadsan yihiin waa walaalaheen annaguna sidii markaa nagu dhibteen baan u qabanaynaa nuuna fulinaynaa maarata sidii ma garanaysa daacada oo walaalnimo ah baan u fulinaynaa dhammaan waxaan leenahay waad mahadsantihiin magaaladii qaraxa iyo dagaalka xooggan uu ka dhacay oo maantay xora iyo duuleedkeedii iyo magaalooyinkii waxaa weeye xigay oo dhammaantood cadowgii laga xoreeyey dhufaysyadii adkaa oo laga bixiyey maanta inaan meeshaan iskugu nimaadno ilaaha horta ku mahadinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan dhallinyarada beesha reer Nimcaale xildhibaanka iyo guddoomiyaha iyo dhammaan dhallinyarada meesha timid iyo kuwa ay ka yimaadeen oo ay deeqdan ku matalayeen u soo dhiibay dhammaantood waad u mahad celinaynaa runtii horta marka koowaad ilaah waxaan ka rajaynaynaa deeqda aadna soo gaarsiiseen inay noqoto tijaaro tunjiikum min cadaabin aliim cadaabka beri idinka badbaadaysa adduunkana annagana iyo difaaciina wax u tartaa idinkana taariikhda u noqota wanaagsan waa maanta intaydaan goobjoog ka nahay ilaahayna waxaan rajaynaynaa idinkii intii la baxday inuu miisaanka xasanaadka idinkugu daro runtii waxaa furteen albaab cusub oo annagana waxa weye nagu dhiiri gelinayo weli inay maaragtay dad badan noo dihin yihiinoo waxaa weye ururo badan iyo tiiman badan oo dhaqaalihii iyo dagaalka waxay u baahnaa naga saacidaya inay noo harsan yihiin ayay noo muujinaysaa wayna dhiiri gelinaysaa waa albaab cusub dhallinyaro beel ka socota maanta kaleto beesha mar hadday saasoo kale tahay dhiirigelintaasi wax lagu faano weeye runtii waxaan rajaynaynaa in awal degmooyin iyo
maxaan ku yidhahdaa guruuba ama jaaliyada ama waxyaala noocaasa iyo xildhibaanaha wax keenaya laakiin maantay dhallinyara ka socota beesha reer Nimcaalaha wax keentay waa qaybtii koowaad oo saa samaysa ayaga dhallinyaradii beelaha kale waa noo harsan yihiin beesha inteedii kalena way noo harsan yihiin marka waa alxamdulillahi alxamdu walminna beeshu awal dagaalkii ku jirtay ciidankii iyo saraakiishii iyo hubkii baa meesha yaalay laakiin maanta si gaara dhallinyaradan ugu mahad celinaynaa wejigan ay fureen meesha inay yimaadeen mar haddii deegaankan marka la fiiriyo qaybta tolkaa meesha dagaalku uu ku qabsaday qoyskii ugu fogaa markii deegaan ahaan la fiiriyo wey mar hadday yimaadeen inta ka sokaysa waxay sugayaan de waa ku khasbay lama arko inay meesha yimaadaan bay ku khasban yihiin laakiin cid kastoo hadda kabacdi dhabadaas soo raacda idinka unbaa sunnadaa jideeyey taariikhdaasna baal gooniya idinkuu qorayna haddii ilaahay qadara beeshoo dhan gaar ahaan dhallinyarada beesha reer Nimcaale meel gaara ayaa waxa ay keeneen iyo waxa ay sameeyeen iyo waddada iyo sunnada maanta ay jideeyeen si gaar ahaan u qori doonaa waa mahadsantihiin maantay meeshaan waxaan ku soo dhawaynaynaa oo noogu yimid wiilal dhallinyaro ah oo walaal ah oo beesha reer Nimcaale ah oo gurmud wanaagsan soo sameeyey oo noogu yimid meesha la yiraahdo Wisil waxaan leenahay khayr Allah ha siiyo gurmudka ay keeneen iyo dhaqaalaha ay keeneen oo maanta halkaan soo taashay waa wada ducaynaynaa waana ka gudoon waayahay waxaan inta kale ugu baaqaynaa beelaha badan oo reerku u dhashay oo dalkan iyo dadkan ku xisaabtamaya nimankaas ku daydoon dhalinyarada waa inay soo gurmadaan waa inay yimaadaan waa inay dhaqaalahooda keenaan waa in lagu arkaa Shabeellow iyo Wisil waa in lagu arkaa intaasaan ayaan ugu baaqaynaa haddana waxaan ku darahayaa ganacsatada u baaqaynaa wiilasha yararka baa socda ayagana dukaamadii bay hor fadhiyaan shirkadihii bay hor fadhiyaan waa inay keenaan dhaqaalaha iyo maalka ay hayaan saddex intay u dhigaan laba meelood waa inay ku bixiyaan halkan sadaqay u tahay kaalmay u tahay taariikhna waa u tahay taas halkaan markaan geeyo waxaan leeyahay bulshada maqan oo meeshaan u dhalatay oo tirada badan leh oo meelo badan iga daawanaysa ayaguna waa in gurmud weyn soo sameeyaan waxaan kaloo intaa ku darahayaa bulshada nala dhalatay oo dibadda jidho jaaliyadu waa inay soo gurmataa wixii hore ay keeneenna waa uga mahad celinaynaa haddana waa in gurmudkooda soo laba jibaara waxaan halkan uga mahad celinayaa dhallinyarada isxilqaantay oo garatay inay garab istaagaan jihaadka lagula jiro qawaarijaas diin iyo dal midna aan rabin aad baan horta ugu mahad celinayaa waxaan kaloon halkan rabaa inaan uga baaqo kuwa dhiman oo ka cabsada in hadday cagad biyaa keenaan in la soo waco waxaan leenahay iska daaya cabsida qawaariju waa tagtay naf kuma harin cabsidoodana meel iska dhiga ilaahay ka cabsada ku jihaada yuhuuddaas meesha laga sii cayrinayo oo rabaan inay idin gumaystaan caqli iyo maskax iyo diin intaba idinka gumaystaan ha ka yeelinine la jihaada maanta waxaa farxad noo ah halkan inaan kula wareegayno deeq ay iska soo aruuriyeen beelaha halkan dega beel ka mid ah una soo wakiisheen dhallinyarada aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida la wada socotaan weerarkii halkan cadow al-shabaab uu ku soo qaaday 27 bishii Juun feeskiisii koobaad waa uu dhammaaday waana lagu jabiyey feeska labaad oo socdan insha Allah taala maanta waxa bilow u ah gurmadka dhalinyarada feeskii koobaad ama wajigii koobaad si fiican loogu soo gurmaday maanta waxaan rabnaa wajiga labaad oo bilaabanaya ka xoreynta deegaanada koonfurta mudug runtii meel fiican u maraya waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baacsiga maanta lagu hayo in halkaas laga sii wado oo weerarkii ay ku soo qaadeen halkan uu u noqdo mid Soomaaliya looga xoreeyo way ka shalaayeen wayna ka shalaayi doonaan sidaad ogtihiin cadawga al-shabaab malahan beel gooni u targad gareysanayo ummadda Soomaaliyeed ayuu hal maalin hal isgoys ku wada xasuuqay 14 Oktoobar 2017 14 Oktoobar maalmo ayaa naga xiga waxaan rajaynaynaa 14 Oktoobar 2021 in al-shabaab wadankan laga xoreeyo duulaanka halkan ay ku soo qaadeen ay ka shalayn doonaan waxaan rabnaa dadka reer Galmudug dhammaan meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan qayb ay ka noqdaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in ay u noqoto tilaabad u dambeysay ama weerarada u dambeeyay oo umad Soomaaliyeed ku gumaadaan ay ku qaadaan in noqdo waxaan leenahay daawanayo waa dadkaagi daawanayo waa dalkaagi ana dhoobada adna dhagaxa
ninkii dhuuntana dhaxalku ma leh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.